waxaan salaamayaa marti sharafta qiimaha badan leh ee ka soo qayb gashay xafladan aadka u quruxda badan waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta qaranka ee horeeyaan golayaasha wasiirada iyo dhammaan daneeyayaasha Soomaaliland waxaan salaamayaa sidoo kale marti sharaftan qiimaha badan ee ugu horeeyaan waalidku ardaydan aadka u qiimaha badan ee maanta qalin jabinaysa iyo maamulka jaamacadda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam marka koobaad ilaahay bay mahad u sugnaatay allah inagu maanta inagu simay inay noo qabsanto xafladan aadka u qiimaha badan leh allah annagana nagu sugay inay noo rumowdo mid ka mida rajooyinkayga aan lahayn ayaa mahaddaas oo dhan leh marka labaad waxaan u mahad celinayaa waalidkayga aadka u qiimaha badan leh waalidka noo huray xoolihiisii xooggiisii waqtigiisii iyo wax kastoo qof bilaadan uu xeeriyo waxaan u mahadnaqaynaa waalidka bacad iyo bannaanba noo taagnaa inay annagana soo barbaariyaan waxna soo baraan maanta aan mid ka mid ah hamiyadeedii rumaynaynana ayna garab taagan yihiin waa mahadsantiin hooyo waa mahadsantiin aabbo iyo abtiyaal dhammaantiinba waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa macallimiinteedii waxna soo baray jahliga naga soo saaray iyaga la'aantooda xamaanaan noqoneen waxay naga dhigeen kuwa aanu maanta nahay waxay nagu simeen inaannu la tartanno dunida waxay sidoo kale noo hamigeliyeen inaannu noqonno dhakhaatiirta mustaqbalka macallimiinta mustaqbalka maamulkii madaxweynayaasha mustaqbalka macallin aad baad mahadsantihiin insha allah abaalkiina ilaahay jannaa ka dhigo waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa maamulka jaamacadda oo isagu soo qabanqaabiya xafladdan aragtaan annagana waxna soo baray waxaan si gaara waxa mudan mar walba maamuusan oo inaga mudan doctorisa adna aadan ismaaciil aad baad mahadsantahay hooyo midhahan aad arkaysaan iyadaa soo saartay abaalkaagana waan ku haynaa hooyo insha allah haddii ilaahay ka dhigo wuxuu yidhi in abaal amaa yahay gudiduna awood tahay gabistuna inkaar tahay kuwa ku og baan nahay hooyo midhahanaad soo saartay waxay noqon doonaan kuwii dalka kuwii horena way anfaceen kuwan maanta joogaana waxaan rajaynaynaa insha allah inay dhammaantood anfacaan dalka mudanayaal iyo marwooyin dhammaan marti sharafta qiimaha badan leh halkan maanta waxaa ka qalin jebinaya arday aad u qiimo badan oo dhammaantood u badan culumta caafimaadka sidayna loo soo xushay suuxiyayaal baa ku jira dhakhaatiirtii afkiyeelkahaa jooga dhakhaatiirtii guud baa jooga waxaa jooga arday shaybaadhka baratay kalkaalisooyin umulisooyin arday dawooyin ku takhasustay public health dhammaantood ardaydan maanta hortiina fadhiyaa waa arday ka soo dhex baxday shaandhadii iyo miiddii loo sameeyey lana soo xusay waxaanan maanta ka markhaati nahay dhammaan intayda hor fadhidaa inay wada yihiin dad ku takhasusay wax badanna ka og wax badanna ka garanaya wixii ay soo barteen waxaa mahaddaas oo dhan iska leh maamulka jaamacadda oon aad iyo aad uga mahad celinayo jaamacadda adna aadan sidoo kale waa jaamacadda keliya koobsatay meeshaan wax ku dhiganaynay iyo halkii aan baracticalka ku qaadanaynay waxaanu leenahay haddaanu nahay kuuliyadaha kala duwan meeshii anugu wax ku baranaynay iyo halkii aanu baractical ku qaadanno meel ku wada yaalla sidoo kale jaamacaddu waxa cusub ee hadda soo kordhisay kuuliyadaha veterinary-ga iyo agriculture-ka oo dhammaantood loo diyaariyey beerihii iyo halkii wax ku baran lahaayeen jaamacadda keliyana looma tababaro inaannu dadka ka caawinno caafimaadka bulshadeeda waanu caawinnaa waxaanu ka qayb qaadanaa kolba duruufaha jira waxaanu maanta laga wada markhaati yahay jaamacadda adna aadan ardaydeeda iyo maamulkeedu xilliga abaaruhu jireen waxay bixiyeenay soo qaybiyeen 189 booyadood oo la gaadhsiiyey dadkii abaaraysnaa noloma tababaro caafimaad keliya waxaanu u joognaa caawinta bulshadeeda waxaanu ka qayb qaadannay masiibadii weyneeda ku dhacday suuqeennii waaheen horta waxaa la idhahdaa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan waxaasoo dhan waxaa ka mas-uula oo mar walba waxaa ka wada qayb qaatay waa maamulka jaamacadda aad iyo aad baan uga faraxsannahay waxaan maanta si gaara u xusayaa
وأنا كان نوقف فرحات بدن إن كلية ديجو الرئيسي أما دخاتير تيجو الرئيسي برتا علوم تعافمات كجود إن ما تكسب بحذي جامعة عندنا هذا مر لبعض يمر صدحات وحسيقار وهمبليين يا دخاتير تاس همبليو دمانتين ما أنت تاريخ وتهاي 8 أكتوبر waxaan u sheegaynaa dhammaan marti sharafta nagala soo qayb gashay inay yihiin ardaydani kuwa dhamaystay waxa laala wixii shuruud iyaga ku wada xidhnaa guntiga gabagabadii jaamacaddu waxay u diyaar tahay ka qayb qaadashada howlaha caafimaadka dalka kaga jira masiibooyinka qarana jira aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeynaa maamulka jaamacadda soo jeedinteedu waxay tahay kolley inta badan marka meelaha kale jooga ardaydu waxay ka codsataa madaxda meesha joogta in shaqo abuur waxa la sameeyo annagu halkan waxaanu diyaar u nahay haddaan nahay jaamacaddaadna aadan in annaga maalgelinna loo sameeyo maskaxdeeda fareeshkaana na lagu taageero taasaanu diyaar u nahay ugu dambayntii waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaantiin ilaahay ha idinku anfaco cilmigaad soo barateen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu